xukuumadda waqtigeedu dhammaaday ee ka arrimisa villa Soomaaliya ayaa soo agaasintay kulan gaar ah oo ay la yeelanaysay madaxda maamul goboleedyada ee iyada la socda kulankaasi oo maanta lagu qabtay madasha Fasyooni ee xarunta Xalane. Shirkani ayaa lagaga wada hadlayay sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan doorashooyinka dalka Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid haatan uu cadaadis weyn kaga imanayo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo musharaxiinta iyo siyaasiyiin kale. Sidoo kale beesha caalamka ayuu kaga imanaya cadaadis weyne kaasi oo la xidhiidha sidii ay u qabsoomi lahayd doorashooyinka Soomaaliya. Waxaana ay xukuumaddu isku dayaysaa inay diyaarsato ajandihii ay kaga hortagi lahayd dhinacyada kale ee iyada ka soo horjeeda. Kulan xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isku arkeen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa isagana sidoo kale lagu gorfeeyay arrimo dhowr oo la xidhiidha doorashooyinka. Sidoo kale waxaa xusid mudan in madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni uu hore u sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhoobtay goobta shirku uu ka dhacayo ciidamo fara badan kuwaasi oo uu sheegay inay shaki gelinayaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo ka Jubbaland ayaa tan iyo intii Muqdisho ay ku sugnaayeen waxa uu fadhigoodu ahaa xerada Xalane, waxaana madaxweyne Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe labaduba ay wataan ciidamo gaara oo ammaankooda sugaya. Ammaanka xarunta lagu qabanayo shirka oo maanta uu shirka hordhiciisu ka furmay ayaa ahayd mid aad loo adkeeyay ammaanka iyadoo ay ku sugnaayeen ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee loo yaqaano AMISOM. Sidoo kale wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Francisco Madera ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ammaanka shirka ay damaanad qaadayaan ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ee AMISOM. Beesha caalamka ayaa tan iyo intii ay guuldaraysteen shirarkii hore loogu baaqay waxa ay wadeen dadaalo dheeraada oo ay isugu soo dhaweynayaan dhinacyada ku kala aragtida duwan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay kulamo gaargaara la qaadanayeen hogaamiyayaasha kala duwan ee Soomaalida iyagoo oo taageerayay shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda fadhigeedu yahay villa Soomaaliya ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Cadaadiska ugu weyn ayaa waxa waday sida muuqata dowladda Mareykanka, waxaana bayaankii ugu dambeeyay ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo saartay ay ku amartay madaxda maamul goboleedyada in aanay ka tegin magaalada Muqdisho tan iyo inta laga gaadhayay heshiis doorashooyinka dalka Soomaaliya. Shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa aan ka soo xaadirin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.